waa maxay xukunka dacwada? xukunka dacwada waa waajib oo Allah saaray dhammaan ummadda uguna yeeray alla sareeyay wuxuu dhahay waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alkhayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم wuxuu dhahay qofkii arka munkar ku suuliye gacantiisa haduusan awoodin ku inkir carabkiisa haduusan awoodin kana qalbiga waana mid kugu hooseeya iimaanka.